السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janaalkayga waa aniga hore idinku sheegay inaan insha Allah bilaabi doono lectures ku saabsan programming Python. Python waxa weeye waa programming high level programming waxa weeye waa programming lagu sameeyo applications iyo web applications, websites iyo restaurant management system waxa la yiraahdo ama GUI applications. insha Allah waxaan idin tusayaa bilow ilaa insha Allah dhamaad sida Python loola soo dego, sida Python IDE loola soo dego, sida loo soo saaro programmingka, loo barto variableskeeda, loo barto syntaxkeeda insha Allah. step by step aan u socono waxaan insha Allah geedi doonaa inaan application ku sameyno sida loogu connect gareeyo databasekeena idin baro insha Allah. sida Ilaahay khayr ka dhigo meesha ku dhamaatana waa arki doonaa insha Allah. Python markaa rabtid inaad la soo degtid website-kana soo booqanaysaa la yiraahdo Python www.python.org. python.org markaad timaadid meeshaan ku soo baxaysa codekii wixii ku sheegayaa. haddii u baahantahay xog badan inaad kasii ogaatina oo ka baratid Pythonka isla iyadaba ka bara kadhaa waxyaaba badan laga bartay leedahay. download baad tagaysaa. download markaad tagtid waxaad arkaysaa optionska marka download Python 3.70 versionkeedu marayo weye. Python Windows baa baahannahay waa la soo degaynaa. ani laakiin already way ugu jiraa laakiin adiga download baa ku dhufanaysaa for Windows. markuu kuu dego waxaad ka raadinaysaa meesha uu ka yaalay computerkaaga. inta badanna wuxuu galaa downloadka computerka. waxaa haddana dooranaynaa IDE Integrated Development Environment-ga aan ku qori lahayn codeka ama programmingkii aan ku qori lahayn waxaa la yiraahdaa PyCharm. waa kan PyCharm baan ku dhufanaynaa. waa halka kan ugu horeyso yaalaa oo intan asaga ku fadhiya laakiin annaga waxaan u baahanahay download PyCharm. waxaan siinayaa two options buu siiyay. haddii aad Mac OS haysatid, haddii aad Linux isticmaalaysid, kan isticmaalaysid Windows isticmaalaysid insha Allah inta waad ka helaysaa iyaga. labuna siiyay laba option oo la yiraahdo professional iyo community. haddii aan professionalka idinku tuso kolle waa free trial way. haddii aan wax idinkaga sheego waxa weeye IDE for Python oo kan waxa weeye waa professional oo webkii applicationadii lagu sameynayaa, web applicationkii, web developmentkii lagu sameynayaa. marka anagu uma baahnin hadeer inaan website sameyno ama website aan ku sameyno. just micnihii hadeer waa inaan barano qofku step by step baa loo bartaa kadib baad gaaraysaa in la sameeyo website. marka community baan u baahannahay. download baad ku dhufanaysaa. download markaa ku dhufatid insha Allah wuu kuu degayaa sida caadiga ahaa oo applicationadana loo soo deji jiray software-ada ayaad sameynaysaa install kadibna finish baa leedahay. next finish baa insha Allah leedahay. kadib theme-ka waa bedeli kadhaa. goortii geeyo meesha ayaa waxa ku soo baxaysa pop-up yar warqada. kadib hoosteeda meel configure ku qoran tahay ku dhufanaysaa kadibna appearance-ka ayaa bedeli doonta insha Allah. marka hadeer waxaan intusayaa programmingkii inaan galno oo bilowno insha Allah. waa kan aniga text editor-kayga weye ama IDE-gayga weye. halka kan ayaan ka bilaabaynaa insha Allah. markii aad saa heshid horta Python waxa weeye waa programmingka aan ahaantii is-iraaday waa programmingta ugu fudud programmingka sababtoo ah programmingka kale waxyaaba badan xerar badan rules badan buu leeyahay laakiin kan inta badan ruleskaas ma laha sida semicolons inaad brackets ku furtid waxyaabahaas dhan uma baahnid. just hadeer waxaan qoraynaa print
print ay la aragtaa maan filayaa halkaa hello world waad aragtaa maan filayaa waxaan qoray print hello world just wuu noo soo baxay. waxaad kaloo qori kartaa waa print welcome sorry quotation baan ka tagay welcome my channel marka waa kaas hadeer waxaa tahay Python programmer haddii ayba kuu soo baxayso shaashada. haddii aan fiirino errorkeeda haddii aan fiirino waxaa ka mid ah welcome wuxuu leeyahay error buu noo saarayaa waxyaabaha ka maqanna wuu kuu sheegayaa. Python inta badana tagsigeedka Pythonka waxaa raacinaysaa anigu waxaan dhiganayaa desktopka waxaan ku sameysanayaa folder la yiraahdo waana muhiim mar walba inaad ku samaysatid Python practice oo furaysa halka kana waxaa u bixinaysaa first.py extensionkeeda iyadoo waxay noqotaa first.py marka waa kaas insha Allah halkaasina kasoo bixi doontaa. That's it. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.